بسم الله الرحمن الرحيم. تليها عيدن كبوليسكا تليها دوكسيغا سراكي قدوميها دقمة عرمو مسؤوليين تا كلا دوان سراكيشا كلا دوان عيدن مدى بنتلان عيدن مدى توبرك وغسعدو دوكسيغا توبرك عرمو دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan inagu soo booqdo dugsiga Carmo oo runtii ay sida warbixinta hadda saraakiishu ay sheegeen ay tahay dufcad programkii hadda socday dufcaddii labaad oo ahayd kuwa ka horreysay ay ka baxeen marka laga reebo tababaradii hore oo dugsigu bixin jiray. qorshahan cusub oo la rabo in booliiska Puntland kor loogu qaado, la rabo in amniga Puntland lagu horumariyo, wuxuu sababay in qorshahan aad idinku dufcaddii labaad tihiin in dowladda Puntland ay diyaariso si loo helo ciidamo ku filan oo u tababaran ilaalinta amniga iyo ku dhaqanka sharciga inay ku ilaaliyaan dadka. dowladdu waxay ku dhisan tahay sharcigana waxaa ilaaliya ciidanka oo ugu horeeyaan ciidanka booliiska. runtii hawshaas waa howlaha qaranka iyo bulshada aan mas'uulka ka nahay ay noo igmatay. dowladda Puntland waxay ku dhisan tahay sharci, waxaa loo igmaday in ay dalka hogaamiso, ilaaliso badqabkiisa, ilaaliso deganaanshihiisa, ka shaqayso horumarkiisa, bulsho caafimaad qabta oo sharci iyo kala dambeyn ku dhisan in la abuuro. waynu garan karnaa dalka maraaxishii uu soo maray 35 sano u dambeysay marka laga tago markii xorriyadda la qaatay 30 sano ee ka horreysay oo Soomaaliya dawladdii 60kii calanka qaadatay ilaa 90kii markeeda laga sheekeyn karo maraaxil kala duwan martay, laakiin dawladnimo sugani ay jirtay. wixii dagaalkii sokeeye iyo burburkii dawladdii dhexe ee 90kii ka dambeeyay 35 sano ayaa ka soo wareegtay. 35 sano Puntland maraaxil kala duwan bay soo martay. 8 sano oo runtii ururka SDF iyo SNDU iyo USB ay maamulayeen oo dalku qalalaasay iyo dagaalo sokeeye ku jiray, iyo 27 sano u dambeeyay oo 1998 wixii ka dambeeyay oo dowladda Puntland ee maanta jirta aan halka u fadhino ee aasaasatay. runtii muddadaas 27 sano ahaa wax badan bay dadkani soo qabsadeen, horumar badan bay gaareen, nolol degan bay abuurteen, dhaqaalay abuureen, horumar badan oo marka loo fiiriyo awooddooda ayay qabsadeen. meesha maanta la soo gaaray waxay u baahan tahay meel ka sii sarreysa inay Puntland gaarto. siday u gaari lahayd waxay u baahan tahay in hay-adaha dowladda la kobciyo, awoodda sharciga oo mararka qaybtood weli ay ku furan tahay bulsho burbur ka soo doogtay oo hubku uu in badan gacantiisa dad ku jiro, oo runtii intooda badan ay xilkas yihiin oo sida dadka hubka u haystaan iyo sida ay u dhacaan faldambiyadu ay kala yar tahay. haddana mar walba dowladnimadu waxa weeye in awoodda hubku ay dowladda gacanteeda ku jirto. dowladdaasina ay tahay dowlad dadka u siman oo cadaalad ku dhaqaysa oo qof walba uu ku kalsoonaado uusan u baahan inuu awood hubeed haysto. marka waynu garan karnaa duruufaha nagu xeeran iyo maraaxisha aan marnay, laakiin maanta waxa weeye maalin ka duwan maalmahaas. labadii sano u dambeysay qorshaha dowladdu wuxuu ahaa weliba marxaladdii labaad aniga lay doortay waxaa diiradda saarnay kow inaan cirib tirno argagixisada
fursadda siinaysa in dadku kala shakiyo in qabaa'ilka la isku dhufto in dadku ay hubka sii haystaan maxaa yeelay amni darray abuureen argagixisadu waxay abuureen baad waxay abuureen cabsi waxay abuureen bulshada inay iska hor keenaan waxay abuureen inay deegaano ka mida deegaanada ay fariisimo ka dhigtaan waxay khatar ku noqdeen jiritaanka puntland iyo kan soomaaliyeed iyo kan gobolka aynu la wadaagno ummadaha kaleeto arrintaas waa qodobka koowaad oo dowladda puntland ay ayaantan dambe awooddeeda iyo xooggeeda isku geynayso waad ogtihiinoo magaaladan carmo ayaan ka daahfurnay 19 bishan November halka looga dhawaaqay in dagaalkii uu bilowday iyadoo lagu dhawaaqay 25 October baarlamaanka aan ka sheegnay inay dalku u galay xaalad dagaal muddo sanad ah ayuu dagaalkaas socday waxay la tahay uma baahnidin inaan taa aad u sheego waxaa la gaaray horumar ballaaran waxaa la ciribtiray dhammaan meelihii ay ku dhuumaalaysanayeen waxaa la wiiqay awooddoodii waxaa la burburiyey kartidoodii waxaa la wada wax la dilay wax la qabtay laga dhigay xubnahoodii waxay ciidamada puntland ee geesiyaasha ah ee jiidda hore ka dagaalamaya ay qarka u saaran yihiin maalmaha dhow inay dhahaan hawshaas waa soo dhammaatay maxaa kaloo ku xigo oo sida qorshuhuna uu yahay inay calmadow ka howlgalaan arrintaas waa arrinta ku saabsan argagixisada haddii ciidan hubaysan oo ka soo horjeeda qaanuunka iyo dhismaha puntland iyo jiritaankeeda uu jiro wixii kaloo laga hadlaabo waxba macnaa naqanayso marka hadafkoowaad wuxuu yahay cid hubaysan oo meel joogta oo puntland jiritaankeeda ka soo horjeeda waa number 1 in lala dagaalamo waxaa ku xigi doona dad reer puntland oo jiritaanka aan diidanayn oo dowladnimada raba oo dadkooda ka mid ah laakiin hubaysan oo ay dhici karto inay faldambiyeedyo sameeyaan kuwaas waa baab kale waa midda idinkan ila tababarayo xooggeeda maxaa yeelay taas waxaan rajaynayaa ciidamada hadda ku howlan inay soo afjari doonaan midda argagixisada midda dhinaanaysa oo sida joogtada in loo ilaaliyo u baahan waxa weeye caasi lama weynayo nin mar walba qaanuunka inuu jiro rabo ma la weynayo faldambiyeed inta bini aadan jirana ma dhammaanayo laakiin waa dembiye ka dhexdhacaya idaarka ama xayndaabka qaanuuniga ah ee puntland leedahay kaas ayaa loo sameeyey ciidanka booliiska adduunyadoo dhan kan puntlandna kawaasi la mid yihiin ciidamada puntland ee booliisku waxa weeye inay ka shaqeeyaan magaalooyinka iyo gudaha amniga gudaha ee puntland in ay ilaaliyaan amniga gudaha ee puntland hadday miyi tahay hadday magaalo tahay iyo hadday bad tahay iyo haddii ay cir tahayba ciidanka booliiska u xilsaaran inay badqabkiisa ilaaliyaan sharcigana ku ilaaliyaan dadkaas reer puntland ah ee halkaa ku nool iyo cid kasta oo aan reer puntland ahayn ama soomaali ahayn oo dalkan ku joogta sifo sharci ah marka hawshan sugaysa waa hawl ballaaran waa hawl u baahan dardargelin xoog leh waa hawl u baahan aqoon waa hawl u baahan daacadnimo waa hawl u baahan karti waa hawl u baahan dhiig cusub xaqiiqda marka loo hadlo waxaa dadaalka badan loo gelinayaa tababarada badan loo bixinayaa wakhtiga badan loo gelinayaa dhaqaalaha loo gelinayaa waxa weeye sidii waajibkaas ummaddeena nasaaratay aan u gudan lahayn oo loo heli lahaa dal xasiloon alxamdulilah saaki waxaan magaalada boosaaso ka soo dhaqaaqnay 4:45 daqiiqo markii salaada saa looga baxo waad garan kartaan ilaa halkaa soo soconnay nabadgelyada iyo baabuurta gelaysa iyo kuwa soo baxayaba meel 100 kilomitir iska daa waxa kaloo dhibane boosaas iyo carbo 100 kilomitir ku jirtaan soomaaliya meelo yar baa maanta heli kara inay 100 kilomitir nabad ku socdaan iska daa shacabkeeda madaxdeeda ay ku socdaan marka waa ilaahay nimcadiis oo in la ilaaliyaysa u baahan tahay waxaan insha allah rajaynaynaa ciidamadan dhallinyarada ah oo taliyaha dugsigu uu runtii ammaanta gaarkaa siiyey anigana ammaantiina ay soo gaartay xalay waxaan la fadhiyey saraakiishii runtii baryahan booqashada ku joogta puntland ee canada ka timid oo muddo 2 bari halkiina joogtay oo aan filayo inaad wax badan ka faa'iidaysateen wixii ay la soo kulmeen iyo waxay inaga arkeen iyo rajada weyn ay inagu qabaan runtii wax badan bay xalay iga sheegeen anigana yididiilay sii gelisay runtii maxaa yeelay
dadkeenna gudaha jooga inaan isqirno ama aan is-ammaanno ama aan inaan alleela wax fiican baa socda waa wax dhici kara laakiin cid ka baxsan gudaha waddanka oo markaa kaa baxsan aqoonta aan halka ku haynana leh ajnabina aan ahayn oo Soomaali ah runtii inay intay yimaadaan qiimeyn sameeyaan wax weyn bay ugu dhigan tahay qorshaha dawladda maxaa yeelay sideedaba qorshayaashu waxa weeye qorshayaal ku dhisan qorshayaal fuli kara ku dhisan aqligal ku dhisan awood dawladeed oo la kari karo inay jirto marka waxa ay muuqata hordhaca dufcadii idinka inaga horeysay oo runtii hadda iyagana aan qardho ku sii mari doono waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo 6 bilood soo socota markii idinkuna ka baxdaan kuwaas hawl galaan isbedel muuqda inay magaalooyinka waaweyn ee Puntland ay ku dhici doonaan baan rajaynaynaa iyadoo sidoo kale ciidamada kale ee Puntland khaasatan booliiska ee hore iyo kuwa hadda shaqooyin ku jira iyagana tababaradaan uu sii socon doono maxaa yeelay wanaageedii baan aragnay tababaradu waxay noqon doonaan kuwa isdaba yaala ilaa tababarku isku ekaado iyo si dawri ah in hadba mar qolo la sii geliyo si mar walba aqoonta iyo kartidu aysan u noqon wax dhuma oo ciidamadu aysan noqon wax intuu maalin tababar ka bax meel iska fariista uusan noqon sida ummadaha kaleeto ciidanka tababarka joogtada ku jira inay idinkuna sidaas kala noqotaan runtii diilo weyn baan ka qabaa amniga Puntland inaad wax ka bedeli doontaan waxay fariin u tahay dadka caadaystay inay faldambiyada bulshada dhexdeeda ka sameeyaan inay gabdhaha faraxumeeyaan inay hooyooyinka ay maaragtay mobilada ka furtaan in ay carqaladeeyaan bulshada degan oo xasiloon inay qabaa'ilka fidna dhexgeliyaan inaan waxyaabo aan loo baahnayn oo badan oo hadda aan halka sheegi karin bulshada dhexdeeda la soo galaan waxaa dawladda Puntland ka go'an in ay dalka iyo dadkaba ka qabato cidda dheeriga ku ah oo dambiilayaasha ah ciqaabna ay mutaystaan iyagoo sharciga la horgeyn doona haddii ilaahay waad ogtihiin Puntland xabsiyo badan bay leedahay dad aad u fara badan baa ku xiran dadkaasi bulshada laga soo dhex qabtay bulshadu mar walba dad xun way ku jiri karaan laakiin markay ogaadaan in la daba joogo ama gacan adag lagu qabanayo waxaan rajaynayaa inay hoos u dhacaan sida dalalka qaarkood ay gaareen xabsiyada cid ay ku xiraanba waayeen markii ay boliis adag oo sharciga ilaalinayo oo meel walba joogo oo saacad walba soo jeeda markii la arkay bini aadamku sidiisaba maaragtay xishood wax kuma leh baqdinta ayuu adduunka ku kala joogaa saasaana runtii sunnada rabbaaniga ah saasaa mar walba qur'aanka loogu celinayo goodiga iyo waciidka iyo mar walba loogu sheegayaa in la ciqaabi doono oo bini aadamka haddaan xakamo lagu qaban cunsurka bini aadamka sidaas u samaysan yahay mar walba waxaa isku haysta oo jiidanaya maaragtay xumaanta iyo samaanta marka mar kastoo samaanta aad u sii jiididba mar kastoo insaan saalixa uu soo baxo mar kastoo aad fursad u siisid inay xumaantu sii badato inay bini aadan kastana waa saas qof kastoo fiicnaan jiray haddii aan lagu ilaalin fiicnaanta wuxuu isu bedelaya xumaan waad arkayseen dhalinyaro fara badan oo fiicneyd oo waxbaratay oo lagu soo tiiriya tacabeelay baa maanta waxay yihiin drop out khamriga iyo qaadka iyo qurunka iyo balaayada ku dhex jira tuugada noqonaya nin jecel ama waalidkiisa ay la jecel yihiin inuu tuug noqdo inuu qaatil noqdo inuu mid kastoo wax dilo maalintuu wax dilo qoomamaynaya oo isagoo dhan ishiifaya maxaa yeelay shaydaan baa ka adkaanaya marka waxaa la rabaa inaanan shaydaanka aanan u fududayn dadka sharciga inaan ku ilaalino adduunyada oo dhanna sidaasay u dhaqantaa dadka haddii fursad loo siiyo in ay dembiga siday rabaan ka yeelaan dee ummaddu maba noolaanaysa deganaanshaha dhumaya marka waxaan rabaa shaqadan aad ku jirtaan waa shaqo qaran dhinac kale marka loo firiyana waa shaqo cibaado ah oo qofku inuu aamino oo adeegsado inuu cibaado gudanayo ummaddiisa maxaa yeelay annagu dad muslimiinaynu nahay shaqo kastoo aad qabanaysid haddaadan u aaminin inaad ilaahay hortii u qabanaysid macno ay kuu yeelanaysa male maxaa yeelay juhuudda qofku uu bixinayo wax lagu qiimayn kara ma leh mushahar lagu siiyo ammaan lagu ammaano dhaqaale lagu siiyo wax ay kaa taraysa male
waxa qofka wada waa damiirka waxa qofka wada waa inuu maalin dambe u fakirayaa waa inuu qofku marka rajaynaya iimaan iyo ihtisaab ilaahay ka rajaynaya markaasuu wax qaban karaa markaasaa uu qofku uu noqon karaa qof horumar samayn kara laakiin hadduu iska noqdo qof iska nool dadka iska ilaalinaya indhahooda isdhahaya mushahar baad helaysaa dallacaad baa helaysaa gunnaa helaysaa waxaas wax bini aadanka macno u samaynaya male maxaa yeelay irsaaqadda qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kasta ayuu ka siin karaa kuma xirna shaqada hadda aa haysid ilaahay baana maarata kafaalo qaaday ummadda addoommadiisa inuu irsaaqo laakiin waxa aad shaqadan u soo gelaysaa inaad cibaado u niyootid inaad ummaddaada wanaag ugu horseedid inaad ummaddaada wakhti gelisid inaad hooyooyinka iyo walaalaha iyo xaasaskaaga iyo carruurtaada mustaqbalka ay ku noolaadaan jawi wanaagsan oo mustaqbal iyo ayatiin leh runtii soomaaliya baahi weyn waxay u qabtaa kaadir nadiif ah oo ilaahay ka cabsanaya oo ummaddiisa u naxaya u baahanta kaadirkaas ayaa ka badbaadin kara marxaladda adag ee marayna waad ogtihiin dalkeenna indhaheenno shan ah ayay dekadaha ka soo degeen oo xuduudaha soo mareen oo eraboorada ka soo degeen dhowr kun oo ajnabi ah oo qaatiliin ah oo kulligood criminal ah markaasay waxay degeen dhulkeennii oo waxay addoonsadeen dadkeennii oo waxay ku amarku taagleeyeen bulshadeennii waad garan kartaan dayaca meeshaas ka yimid cidda loo haysto bulshada caadigaa looma haysto dayacaas dowladdaa loo haystaa dowladdana waxaa kow ah waa ciidankana waxaa kow usaa ciidanka booliiska maxaa yeelay xuduudaha laga soo galo dhan waa shaqada ciidanka booliisku leeyahay marka arrimahaas arrimo sahlan ma aha laakiin wax walba oo jira insha allah waxaan rajaynaynaa in laga kaban karo waddadeediina hadda inaan haynaan aan malaynayaa runtii dadaalka taliyaha booliiska iyo saraakiisha booliiska iyo garashada iyo qorshayaasha hadda lagu socdo oo iyaga ka yimid waan uga mahad celinayaa xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaanna waxaa naga go'an inaan gacan weyn ka geysanno shaqadaas runtii quruxda badan ee wanaagsan oo loo rajaynayo bulshada soomaaliyeed inay u noqoto wax muhiima dabcan habka ciidamadeennu u shaqeeyaan guud ahaan waayadan dambe waxay ka tageen dhaqankii booliiska oo maxaa yeelay qalalaasaha iyo deganaansho la'aanta iyo argagixisadu waxay abuurtay in maleeshiyaad iscaysanaysa ciidamadii iyo dadka kaleba u ekaadaan arrintaa inaan beddelnaan rajaynana dadka ugu horreeyo beddeli doonan inaa idinka noqotaan waxaan rabnaa dad akhlaaq ku hubaysan waxaan rabnaa dad cilmi ku hubaysan waxaan rabnaa dad daacadnimo ku hubaysan waxaan rabnaa dad karti iyo hufnaan ku hubaysan waxaan u baahannahay shaqo runtii lagu naaloon kara inaad ummaddiinna u qaban doontaan dhaqamadii baabi'iyey oo maxaa yeelay ummad markay burburayso waxaa laga galaa waa madaxda iyo ciidanka haddaad aragtid madax faasid noqotay iyo ciidan dhaqanka iyo akhlaaqdii disbiliin ka tegey ummaddaas dee wix kasta cid kastaa hunguriyeynaysa taasaa keentay inay cid walbana hunguriyeyso marka waxaan rajaynayaa ciidan sidiisa waxaa lagu yaqaanaa waa disciplin waa akhlaaq waa hufnaan waa inuu sharciga ku adkaado waa inuu habeen iyo maalin u soo jeedaa qofkuna waa doorasho shaqada dowladnimada inaad dooratid wax qofka lagu khasbaya maaha qof walba wuu kari karaa inuu xamaal iska aado inuu xoolihiisa dhaqdo inuu bakhaar iska furto hadduu kari karaayo inteennaan dowladnimada u shaqeeya nin walba intaa waa samayn karaa laakiin qof walba shaqada noocaasoo halkaa taalla oo brivatka ah oo qofku danihiisa shaqaysanaya ka soo tegey wuxuu doortay oo damiirkiisu siiyey inuu danta caamka ah ka shaqeeyo danta caamka ah waxay leedahay bulshada sharaf iyo qiimaa ku leedahay laakiin culays bay leedahay dadka markay hurdaan baad soo jeedaa marka ay raaxaysanayaan baad dhibtoonaysaa laakiin qofba raaxadu siba u yaqaan ninbaa hurdada raaxa u yaqaana ninbaa jimicsiga iyo orodka iyo shaqada raaxa u yaqaana qofku raaxadiisa waxa weeye waxa uu ka helayo farxadda ayaa happiness-kiisa ah waxay la tahay qofku farxadda wuxuu ka heli karaa waxa weeye waxa uu aaminsan yahay inuu qabto marka waxaan rajaynayaa
tababarka aad qaadan doontaan ee isugu jira midka jismiga ee ciidan midka xirfadeed boliis oo ciidan midka sharci iyo midka akhlaaqeed oo ah wacyiga caamka iyo duruusta caamka iyo midka wadaniga ee dalka iyo mas'uuliyadda inaga saaran iyo aqoonta guud ee nagu xeeran intaba marxalad adag bay maraynaa dal Soomaaliyeed baynu dhisaynaa oon ka bilaabanaa Puntland inay siday u tahay hooyada Soomaaliya isbeddelka Soomaaliya loo rajaynayo Puntland ayaa madaxdii naga horeysay ee garowsatay oo go'aansatay inay Puntland ay noqoto meesha ubuucda u ah nidaamka cusub ee dalka Soomaaliya haddana nala gartay markii dambe markaan 98 waxay nala garteen 2004 6 sano kadib ayaa dadka Soomaaliyeed waxay nala garteen in dawlad federaal loo baahay Puntland waxay ku dhisan tahay nidaam federaali ah oo saldhig ah nidaamka federaaliga waa midka aan rajaynayno Soomaali dib dambe inaysan u burburin Soomaali dib dambe inaysan isu buuran inaysan isu baahan in degaan walba dadka markaa jooga ay ku noolaadaan isla maamulaan macnaha federaalku waa intaas macna kale oo xabaarsiga male marka haddaan niraahno dawlad federaal aan nahay adawaadkii ama aaliya wixii lagu qaban lahaa dawladnimada iyo federaalkana ay noo dhisneen ma macnaan yeelanayna macno yeelan waxa weeye marka federaalnimadu waxa la rabaa inay noqoto federaalkii namuudajiskiisa ama tusaalihiisa inay Puntland noqoto wax badan baa hadda laga dheegtaa wax badan baa isteedyadii kale oo dhismay ay ka barteen waxaan rajaynayaa inaad u noqotaan macallimiin mustaqbalka habka dawladnimadu u shaqaynayso habka booliisku u shaqaynayo dabcan isteed walba iyo dawladda federaalka ciidamay leeyihiin laakiin fursadda ay haysataan ma haystaan ciidamada kaleeto amni darradaas inay ka baxaan weeye hadda priority-ga ugu horeeya oo iyagu haystaan laakiin idinku waxaad fursad u helaysaan inaad dhaqan gelin kartaan habkii booliisku u shaqayn jiray oo magaalooyinka uga shaqayn jiray oo maxaa yeelay magaalo degan ayaa la rabaa keliya inaad nidaamkeeda ilaalisaan haddii ilaahay oo hadda aanan laga baqaynin ciidan bannaan ka soo weerara iyo qalalaaso kaleeta aan looga baqaynin ood ogtihiin dalkeennu intiisa badan waa degan yahay meeshaad doontaan mari kartaa laakiin waxaan u baahannahay hirgelinta sharciga iyo ku dhaqanka sharciga iyo ku ilaalinta dadka sharciga meeshaas weeye meesha hadda annagu aan tabeena haddaan reer Puntland nahay oo tababarradaan aad u gelaysaan oo aan rajaynayo tababarkaas inuu noqdo mid miro dhala waxaan ii rajaynayaa guul waxaan inii rajaynayaa muddada aad ku jirtaan tababarka inaad noqotaan dad sida uu yahay uga soo dhalaala uga soo baxa waxaan rajaynayaa dad shaqada booliiskana ka adkaada shaqada difaaca ee hadda la sheegay haddii loo baahdana gacan ka geysan kara laakiin ilaahay idankiisa waxaan rajaynayaa in xooggiinna iyo shaqadiinnu ay noqon doonto shaqooyinka booliiska magaalooyinka dhaca iyo gudaha Puntland inay noqotaan rajaynayaa in cadowga ciidamada hadda ku foogan inay ku filnaan doonaan baan rajaynayaa oo dhowaan aad maqli doontaan hawshaas soo gabagabowday marka guul fiican baan idin rajaynayaa insha Allah inta ay fursadadna waa inay soo noqon doonaa haddii ilaahay idmo si aan u arko performance-giina iyo meesha aad gaarteen waan uga mahad celinayaa macallimiinta ajaanibta ah iyo kuwa Soomaalida ah runtii gacanta ku haya oo isugu jira ciidamada dugsiga iyo ciidamada BMBF oo runtii tababaro la mahadiyay waayadaan doon bixinaya wax diilo badan bayna gelisay awoodda tababarayaasheenna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in dugsigan horumarkiisa aan sii laabno qaabka ciidamadeenna aan tababarnana aan xoojinno maraaxilo kala duwan oo takhasusaad kala duwanna inaan samayn doonno haddii ilaahayno aad baan inigu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan intaas ku soo koobo hadalkayga waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi